ninkii ugu horreeyay oo magaalada Hargeysa laga doorto mudana loo doortay Ingiriiska oo joog ma ahayn Isaaq nagaadina Umar dheer ma helo jiray iyo waxa macallin ah Maxamed Saad Barre waxay dhahaan diyaarada ay ku rusheeyay Hargeysa xagu ku dhintay Maxamed Saad Barre soo laajib dibadda ku dhintay qaxooti وصلنا هذا السوق مرة وحوتي ذاك الدنيا نمان كان ماله كل نقدان مالها محد وحلوير هدات كدر سمي ويدان NFD إثيوبيا الله بضم محروبة يعني جيبوت سدح هذا مركز الشعب كي مركز وافهم صح؟ الصومال لا تركن دي بقى كتير هدي موقتي ها يمكن SSC وكحي هذا وحكى محل ولنيران كعده ظلمي مركز وان كتلي هاي موصو waxaad ku duushay ascaanood dad masaakiin oo walaalaha oo dhalinyarada ah cid ka xigta aanan jirin reebel waxa Soomaalida sheegaysa waxa ka jiro Soomaalida kulli meel bay ka soo wada farcameen waxaan waa culamo iyo xir ma aragtay sheekh kasta oo dhan boo markaa xir haystay kuwii ka agdhaw xirtiisa baa reebel lagu yeeray هذا صباح هذا أوضة بالقلعة حتى هذا أبترسو من إساق أركو بطو لبعتن كوي لبعتن أبوه قارية لأنه قاعدين أبترسده دارت ما شاسو قارية ندر أبترسده وحنا وروحي ويان ما لبس كوي معنا مركا نمكا وأنا اسكو وقت النولا وين فهمت الصوم مركب كلنا الدين اسلام واي كله اسلام او يكون اسلامك يكون الاسلام كان لا بقول ايو xogaagi kun 440 xogaa baa laga joogaa hijradii 10 sano ka horeysay 13 sano ka horeysay الدعوه السريه محيط 10 سنوات و 10 سنوات سمين كوريس أوي كوري سومالي وين شرتي كوري أوي ميقر ذلك ميقر أضو هاد أبترسو أديك هاد أبترسو أديك الدارات حكو قاريسة لواتن كوي لاتن بكو قاريسة إساق أبتن كوي لاتن بكو قارية هوية كالتوال لواتن عينكاس كوي لاتن بكو قارية كوكا حرم بالوو دي قارية marka dad isku waqti wada noolaa weeyaan wada muslimiin ah wixii ku horeeyay dadkan qabla islaam way jireene kumaan kun oo sano jireene aw taariikhda ku horeysay way jirtaa taariikhda marka waxaan lagu leeyahay anigu ma aaminsani inuu nin isaaqi maartay oo iga xiga nin daarood inuu dir iga xigo inuu nin hawiye iga xigo kullina walaalahay اسكمان لانك إيماني أنا بسرعة وإلهي أنت وقصبي أفكار تاسنا ما جرت أنا كأهن واقعات كالرسمي وجرت مسك هذا مركز لقيش قيسي أقونت هذه مسك هذا كنت صيص مركز وعن كل شيء مركز دول مسميسه وضد دول أنت إلهي وعادل وسمك وسنك كرتاجي أولها الحب ما كنت بقولنا ها ولا ليه ولا كنت جمينية تان ku gumeeyo yaan mise ku dili masanaada ogolaan kuwa badan oo iyagana sheeganayeen in la dulmi badan sheeganayeen yaa hadda soo kacay hada dulmiga meel la kuma istaagayo oo bishisa maanta waxaad sheeganaysaa daarad baad sheegan mise saaq baad sheegan bariyadan waa la kala bixi hadana kuwaasa ee qorayshti hadana waa wadi إلا غيرك أوه السيادي أطاي أتيه بطاي لسه جارو أترهب كي أنا أفكر ترسل أنا كقريش أنا كان نصبت في عن نينكم موصلة مرك ودقن لب هني إن لا ترتيره هذا هو ريتروغريسيف وحويا ووحن وواقع عنها نينكم موصلة مسبح مدحونها كاسمان muxuu yahay qorshihiisa wadankii nimankii wadan noqdaan raadinayay 30 sano oo hadda dagaal u galiyay oo uu kala xidhay maxay tahay wax kasta oo markii hore kulli wuxuu raadinayay wax uu asaga kursiga ku ilaashado raadsanayay laakiin hadda way fashilmantay kursiga waxay maanta ku dul lascaanood ku duusho ninka dagaal wuxuu ku jiraa qaranka lagu soo duulay
maanta si fudud baa dadka meesha deganaan si fudud uu bas ka fududa hadalka mise ka guur wadanku waa meel kala deg misaaniga ogolaaw magartalkii mise aan ku gumeeyo oo aan ku muqooniyo oo adoo ogol aan cagta hoosteeda kusoo geliyo taariikhda markaad garanayso soomaali weligeed taa ma yeelin weligeed maraykan soo dowlad maaha waxaa ka qabsadaa maxamed magaraadi magara waxaa ka qabsadaa maxamed waa ingiriiska wuxuu isku dayay ceed isku dayda taas oo aanan ku khasaarin oon ku fashilmin ma jirto maxamed siyaad bare waxay dhahaan diyaarada ayuu ku rusheeyey hargeysa xaguu ku dhintay maxamed siyaad bare marka isagoo laajiba dibadda ku dhintay musana hadda isagoo mar dhow qaxootiga arki doontaa mashiis ilaahay baa hayaay intay goorta horta waa saaxiibkii weeyaan walaalkii rasmi aad baan u jeclahay laakiin kuma raacsin waxyaaba uu samaynayo taladeeda qaadanaya kulle way firanayaaye ilaahayna maxay ahayd caf weydiiso istakfirlayso ummadda islaamka iyada walaalaha oo soomaalida ahaydna isu keena waa niman cafiyada kursigana qaatay kii somaliland hadda ceshanaysay mise doorasho sameeya anna maba ku jireen laakiin nabadda un hadiyana si fudud buu hadda u joojin karaa xabadda ka socota laascaanood xabadda garxajis hadda ay ku bilaabeen waxa dhan buu joojin doonaa haddii kale tan garxajis baa bilaabatay sabarhoon baa bilaabatay ciisaana maarata ogolaanaynin ma garta halkii habar jeclaa hadda durmadii waxaa bilaabatay xaaweydi maarata habar jecel iyo habar u dhahdooda ahayd ma garta marka adigu wadankii hadda markaa saa sheegtayba gudihii dagaala kaga bilowday reerkiisii dhexdiisii dagaala ka dhex bilowday laascaanood iyadana way maqan tahay Somaliland maxay wajahaysaa iyo dhihi kartaa anigu horta weligay ma aaminsaneen Soomaali jamiiradda Soomaaliya inay kala tagto laakiin mid baan aaminsanaa oo aan meelo badan ka sheegay Somaliland dadka ku nool cid ka Soomaalisan maray cid ka wadanisan oo ka Soomaalisan oo ka Soomaali jecel ma jirto waa nimanka intay soo qaadeen xurriyadoodii shardi la'aan xamar keeneen markay keeneen bay wuxuu imaadeen niman guna markaan gun ku dhaha dhaqanka shakhsiga gunnimo loo dhashay malaha abo haddaad si kale u dhaqato midgaan qabiil midgaan la dhaha jirta dhankaa mamari ha igu wadani midgaanka meeshu ka imaadaan baan garanay magace laakiin waxa weeyaan haddii adiga waxa weeyaan kii aabbaha dhalayna si sharaf leh iyo qiimo gal oo maaragtay wanaag lagu tilmaamayo ku dhaqan karaa hadna si kale u dhaqan kartaa markaan ku leeyahay xamar waxay ugu imaadeen gunnimo مليه داروت كي هويه درت هويه مادان باقولهت لكن اشخاص مدحدهد يا لمن تليان الصوت وبري وقرن كيف فساد كي ما في نمدي تليان الصوت وبري يا هاي marka koowaad waxay badheen baka calaga noqdo idinka bal xogaa jibridin hayst nimankan meel ku noqdaan malaha maxaa waxa lagu yiri hadaad ku darsan weydaan LFD iyo Ethiopia labadaba ma xoroobeyaan Djibouti saddexdaba marka shacabkii marka Somaliland ku noolaa xadaarad waxay joogeen iyo Soomaalinimo iyo patriotism iyo nationalism ee Soomaalida kala gaarin waxa ku daliil ah ninka ugu horeeyay oo magaalada Hargeysa laga doorto mudana loo doortay Ingiriiska oo joog ma ahayn nisaaq nagaadeen Umar dheer ma yaalo jiray iyo waxa macallin ee kan ayaa anaga Soomaalida meeshaas ka joogtay bal xumay xumaatadii way socotay marka dambe isku dhacbaa imaaday marka dambe dhibaato badan baa imaatay hadda in la yiraahdo labadii qaran oo isu imaatay ha ku heshiiyaan power sharing abazo oo la yiraahdo kan ki imaada madaxweynaha kan prime minister ka keeno waa in waxyaabo aankaas oo kale ma haduu Hargeysa madaxweynaha ka imaado koonfurna ka imaado prime minister ka wadanka marka laazim a power sharing format marka imaadeen baa waxa la siiyay wasiirka tacliinta waliir intaas aan idin haynaa haddana waxay dhaheen Soomaalinimadii yaan ku haleynaa
cid kale kuma hadlayn aanu qaadana waxa la ogoli waa laga xishoon waay dadka dambe ay sameynayaan markay inqilaabka isku dayeen ma saraakiil isku dartay waqooyiha oo kulli ka soo baxeen jaamacadihii ingiriiska oo Sandhurst ka soo baxeen oo nin caawil la oran jiray oo inta safiir ahaan jiray aan saaxiibkay wali uu nool yahay wali geeriisa soo maqal oo kamid ahaa rag lamid ah oo Soomaali ah runtii yaa ku jiray bariga marka waa la xumeeyay qalbigoodana ma waa la fogeeyay hadda waa inay soo noqdaan laakiin heshiis power sharing oo fiican oo systematic lagu wada iyo federalism kullu xoojiyo oo ay tahay haddii aad caasimadda wax ka heshana waa sideedii xaq baad u leedahay haddii lagu yareeyana gobolkii waa yaa dhismaya oo wax loo qoondeynayo ceyrinka lagu qaybsanaya sida hadda Kenya ka jirto kale devolution ka waxalada waa devolution of resources amalka la dina dadka meel kasta qolo kasta waxay haystaan lacag ay iyaga ku howlgeli karto oo wadanka gobolkeeda ku dhisan karto laakiin in ay kala go'aan ma aaminsan Somaliland iyo ma cid ka go'i karto Soomaaliya si maanta tahay ma jirto diyaar wahay inaan sameeyno political and social economic and social and even political integration ana ku sameeyo macallanaga Soomaaliya inta ku jirta gobolada anaga Soomaaliya degan tahay isbedel inuu dhaco isu socdaan Soomaaliya walaalaha xagga baha wax badan baa jirta oo anagu Soomaalinimadii waanu aaminsanahay waanu jecelnahay cidana inay noqoto cidda ugu mudnaan badan ugu qiimo badan qaaradda Afrika mise adduunka baan jecelahay هذه فهمت السوما؟ كم إيمان كرت إن الإسقون تقون دي ريبل بنا